gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batuule Axmed Gaballe ayaa soo gaartay magaalada Garowe waxaana duleedka koonfureed ee magaalada ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ururka haweenka Puntland Khadra Warsame Jaamac iyo qaar kamid ah ururka haweenka iyo dadweyne kale duleedka koonfureed ee magaalada ayaana wafdiga gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed ee hogaaminayay lagu soo dhaweeyay iyadoona gudoomiyaha ururka haweenku ay salan qaaday haweenkii soo dhaweeyay waxaana dhinaca kale lagu soo dhaweeyay suugaan gudoomiyaha kadib waxa loo soo gulbiyay gudaha magaalada waxna warbaahinta si wada jira oo la hadlay gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha ururka haweenka Puntland xafiiska gudoomiyaha ururka haweenka ee Puntland magaalada Garowe ugu horeyn Xaliima Cali Biyood oo ka tirsan ururka haweenka ee Puntland ayaa soo dhaweysay gudoomiyaha mar labaad waxa sharaf weyn noo ah maanta inay nala joogto gudoomiyaha haweenka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gaballe waxaan leenahay Batuulo waxaad joogtaa caasimadii Puntland waa gabdhihii aad xukuntay waa gayiga aad xukuntay Garowe fadhiday Batuulo ku soo dhawow saacado furan qalbi furan laab furan fayow oo caafimaad qabta Batuulo ku soo dhawow waa dadkaaga iyo ku jecel ku wada diyaara waxaad arkaysay inay kaaga hor yimaadeen meesha loo yaqaan laac dheere inay kaaga hor yimaadeen gabdhihii islaamihii abwaanadii askartii dhammaanba wafti adiga iyo waftigii kula socday oo qiimaha badan dalka ugu fadhiya inay halka idinkaga hor yimaadeen Puntland waa dhulkaagii barwaaqo horumariyo amaan buuxa ka jira Batuule ku soo dhawow Batuule ku soo dhawow leeyda geelana ku soo dhawow Batuule ku soo dhawow waa dhulkaagii barwaaqo horumariyo amaan buuxa ka jira Batuule ku soo dhawow bishaaro ku soo dhawow oqoradi haweenkay bilaray bildhalatay bishaaro soo dhawow bulshada ku wada jecel bagay iyo wadnaha iyo beerka adnagaga tahay Batuule soo dhawow Khadra Warsame Jaamac gudoomiyaha ururka haweenka Puntland oo warbaahinta la hadashay ayaa faahfaahin ka bixisay socdaalka gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed ee Garowe ay ku soo gaartay soo dhawow xafiiska ururka haweenka maanta dhex fadhida oo Puntland waa ku soo dhaweynaynaa Batuule Gaballe hadda ayni ka warrama halkan imaanshaha ay imaatay waxay u timi in ay haweenka Puntland ama haweenka Soomaaliyeed afar soon ay ka wacdi geliso cudurkii corona oo soconaya 3 bilood oo wacdi gelina si ay dadkeena uga dagaalanto cudurrada wadanka maraya oo corona ka mid yahay geed dheer iyo geed gaabanba waxay u fuushay cudurka la dagaalamkiisa corona 3 bilood buna caasimadda ka soconaya iyo Puntland oo dhanba hadii Ilaahay idinka dhigo iyo gobolada Soomaaliya oo dhanba dhankeeda gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batuule Axmed Gaballe ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedada safarkeeda xilligan ee Puntland waxay sheegtay oo kamid ahaa inay u socoto mashruuc la xiriira hawlo shaqo oo dhinaca caafimaadka gaar ahaan ka hortagga xanuunka coronavirus oo muddo dhowr bilood soconaya kaas oo lagu filinayo goobaha barakacayaasha ee Puntland wafti ballaaran oo ka kooban rag iyo haween oo ay kamid tahay agaasinka ku-xigeenka agaasinka xiriirka dowladgoboleedyada gobolada iyo degmooyinka warsan xasan xagar maxamed amiin
oo madax ka ah waaxda diiwaangelinta ururka haweenka iyo abshirmire oo asagana ka mid ah ururka haweenka dadka la hawlgala oo ka caawiya dhinacyo badan dhammaanteen waxaan idinkugu nimiday inaan idin soo gaarsiino mashruuc cusub oo muddo dheer ay haweenku halgan ugu jireen halgankaas oo ah gabdhaha aan heli karin awood ay ku gataan ama dhaqaale ay ku gataan qalabka ka hortagga cudurka coronavirus ama ha noqdo waxa sanka lagu xirto iyo afka ama ha noqdo waxa gacmaha lagu nadiifiyo ama ha noqdo galoofiska la gashado ee jooga xeryaha barakacayaasha oo horey ay uga soo shaqeeyeen tiimka ay hogaamiso Khatro oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Puntland iyaga oo dadaal iyo isxilqaan sameynaya ay u tageen gabdhahaas oo ay ka soo diyaariyeen warbixin ka jira batuula ku soo